بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد halkani waa janalka cilmi iviya ugu barateen barashada maadooyinka scientifiga fadhigiisu yahay degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe idin soo jeediyo anigoo Ustaad Suna Cabdirasaaq Maxamuud sida codsiga uu nooga soo gaaray dhammaan ardayda ku nool geyga Soomaalida ay degto waa idinka aqbalnay waana tixgelin doonaa codsigiina ahay in la badiyo laga wada dhigo maadooyinka laga dhigo dugsiga sare oo idil sida biology-ga, chemistry-ga, physics-ka, xisaabaadka iyo maadooyin fasalada kale oo maadada biology-ga sida ardayda secondary-ga oo sanadkan ka rabta inay ka qalin jabiso insha Allah waan bilaabi doonaa waan ku dadaali doonaa inaan idin soo diyaarino idinkana qabtirno haduu Ilaahay idmo qaybteeni saddexaad ayaan galaynaa qaybteeni saddexaad ayaan galaynaa introduction-kii biology-ga fasalka for 1 waana the importance of studying biology ahmiyada ama muhiimada loo barto maadadan biology-ga the importance ahmiyada of studying loo baranayo biology maadadan biology-ga the study barashada ayaa la yiraahdaa of biology-ga is very important waa mid aad u muhiimsan the study barashada of biology-ga is very important waa mid aad u muhiimsan ayaa la yiraahdaa the knowledge cilmiga acquired from laga helo this study barashadan biology-ga can be benefit waxay faa'iido u noqon kartaa an individual shakhsiga in many ways haba badan the study barashada of biology-ga is very important aad ayay muhiim u tahay the knowledge cilmiga acquired from laga helo ayaa la yiraahdaa this study barashadan oo la baranayo maadadan biology-ga can be benefit waxay faa'iido u noqon kartaa an individual shakhsiga in many ways habab badan waana ogaan doonaa hababkaas badan the study barashada ayaa la yiraahdaa of biology maadadan biology-ga is important in that waxa ay sidaas ayay muhiim ugu tahay ahmiyada ay leedahay bilaabena qodobka koowaad it helps us waxay naga caawisaa anaga to know ourselves better inaan ogaano wanaaga ama badqabka nafsadeena it helps us waxay naga caawisaa to know inaan ogaano ourselves better badqabka ama wanaaga iyo caafimaadka oo nafsadeena in biology maadadan biology-ga we learn waxa ku baranaynaa what our bodies waxa jirkeena and other living organisms in nooleyaasha kale nool are made up of ka samaysan yihiin in biology maadadan biology-ga we learn waxaan ku baranaa what our bodies waxa jirkeena and living organisms in nooleyaasha and other living organisms in nooleyaasha kale nool are made up of ka samaysan yihiin and this leads us tani waxay nagu hogaaminaysaa anaga to remember inaan xasuusano the greatness of Allah weyninka Allah subhanahu wa ta'ala and this leads us ta waxay nagu hogaaminaysaa anaga to remember inaan xasuusano the greatness of Allah weyninka Allah subhanahu wa ta'ala suuratul wadaariyat aayada 22 sidoo Allah subhanahu wa ta'ala ku leeyahay wa fi anfusikum afala tubsirun miyayna nafsadihiina arkaynin sida aan u abuurnay and in yourself then will you not see and in yourselves then will you not see qaybta halkaas waxaa noogu eg qaybtii saddexaad ee cashirkeena introduction biology-ga waad ku mahadsan tahay
dhageysiga iyo daawashada cashirkan ha ilaawin haddii aad ka hesho cashirkan in aad subscribe like iyo share aad ku qabato waana kaaga mahadcelinayaa dhageysiga iyo daawashada casharadeena taxanaha nabaadiin nolol kulantii